بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. waxaan soo bilownay casharadeenii ahaa obstatric ama gynecology. Shalay waxaan kasoo hadalnay casharkii ugu dambeeyey oo kii ugu dambeeyey midkii ka horreeyay oo ahaa beginning early pregnancy. Waxaan kasoo hadalnay shalay ectopic pregnancy. maanta waxaan ka hadli doonaa wax loo yaqaano gestational trophoblastic disease. waxaan ka hadli doonaa ka ugu dambeeya oo sababo early bleeding during the pregnancy. waxaan kasoo hadalnay soo dhameyn abortion oo isku gudubna waxaan soo dhameyn ectopic pregnancy. maanta waxaan soo gabeynaa gestational trophoblastic disease. saas waxaan ku dhameynay maanta ku gabeynaa loo yaqaano early bleeding during the pregnancy. The gestational trophoblastic disease waa group of disease ama wax loo yaqaano waa group of pregnant related disease. wax loo yaqaano ama related to humans. waa group oo la xiriiro pregnant related to humans. waa arki doonaa sabab leeyahay types kala duwan. sabab loo yeelan doona laba qaybood, pre-malignancy and malignant. sabab loo yaqaan pre-malignancy conditions and malignant condition ayaa loo qeyb doonaa. marka dina ogaato inuu yahay group of pregnancy, inuu yahay related to humans, inuu yahay wax loo yaqaan gestational trophoblastic disease. The gestational trophoblastic disease classification keeda waxaa leenahay waxaa loo kala qeybiyaa wax loo yaqaano pre-malignant condition and malignant. pre-malignant waxaa waaye يعني waxa waaye waa benign laakiin wuxuu isku bedeli karaa malignant. yani wuxuu isku bedeli karaa cancer ayuu isku bedeli karaa sooma. yani waxaa leenahay pre-malignant conditionka waxaan ka qaybinaynaa laba qaybood ayaan u qaybinaynaa. oo waxaa leenahay loo yaqaano partial mole ama partial hydatidform mole iyo complete hydatidform mole. this waxaa leenahay waa pre-malignant. means waxaa waaye can to change the malignancy. waxaan arki doonaa marka la gaaro complete hydatidform mole a high risk to change the malignant. ama partial waxaa leenahay waa rare to change to malignant. waa yartahay tan way badan tahay tan common ah to be, laakiin labadaba isku bedeli karaan. malignant waxaa loo yaqaanaa pre-malignant condition. malignant conditionka asna muxuu yahay? malignant conditionka waxaa ugu caansan saddex qaybood ayaa ugu caansan. number kow maxaa leenahay wax loo yaqaano invasive mole. waxa loo yaqaano invasive mole. invasive mole waxaa waaye waxaa arki doonaa yani ka hadli doonaa. invasive mole waxaa leenahay waa invasion uu sameynaa wuxuu galaa gudaha. invasion uu sameyn doonaa endometrial myometrialki and invasion surrounding organs ku dhagan ayuu weerari doonaa. waxaa loo yaqaano invasive mole yani waa malignant. wax loo yaqaano waxa la yidhaahdo choriocarcinoma. waxaa leenahay this waa invasive mole. waxaa jira loo yaqaano choriocarcinoma sooma. waxaa leenahay choriocarcinoma. choriocarcinoma waxaa leenahay choriocarcinoma. marka waxaa leenahay choriocarcinoma and invasive mole. waxaa leenahay waa carcinoma gooni aadi doonaa. marsta waxaa jira waxaa leenahay nooc la yidhaahdo placenta oo loo soo gaabiyo placental cytoma. waxaa loo yaqaano placental cytoma. yani waxaa leenahay waa placenta cytoma ayaa loo yaqaana. waxaa leenahay placenta waxaa loo yaqaano cytomas. yani muhiimada oo hadli doonaa waxaa isku wareegay. maanta waxaan ka hadlaynaa waxa loo yaqaano gestational trophoblastic disease. gestational trophoblastic waxaa waa describe ergaas waxaa laga hadlaa waa group of pregnant related to humans. waxaa isku dhahay gestational trophoblastic disease. ma jira kala duwanyaas. waxaa leenahay loo qeybay pre-malignant. pre-malignant maxaa waaye yani ma noqon carcinoma, ma noqon yani cancer ma noqon, laakiin isku bedeli kartaa. yani waxaa waaye waa partial mole iyo complete mole. waxaa loo yaqaana hydatidform mole. malignant maxaa waaye kuwaana isku bedeli karo. yani isku bedeli karaa weliba must kawana ah complete isku bedesho. yani waxaa leenahay malignant waxaa waaye waa invasive mole choriocarcinoma aan wax loo yaqaano placental cytoma. marka waxaan qabsan doonaa mid mid ayaan u qabsan doonaa. waxaana sharxi doonaa mid walba iyo waxa laga wado.
bilaabi doonaa waxa loo yaqaano hydatiformal, waxaa loo yaqaano vesicular mole waa lahaa, yani waxaa loo yaqaana magaca hydatiformal waa lahaa, vesicular mole waa lahaa, waana waa pre-malignant, yani waa pre-malignant. waxaan leenahay waa pre-malignant, waxaa loo qeybiyaa leenahay labadaas qaybood oo ah inuu noqdo complete iyo inuu noqdo partial, inuu noqdo complete and inuu noqdo partial inuu noqdo complete molar iyo inuu noqdo partial molar ayuu noqon doonaa. Laakiin waxaa loo yaqaan magaca hydatiformal ama vesicular mole la dhahaa, waa benign neoplasm ama benign tumor waaye ka imaanayo chorionic villi, yani inuu yahay benign oo sameyntaas horena kusoo sheegnay markaan clinical classification waxaan dhahnay waa pre-malignant, marka waa benign. Pathophysiology of molar pregnancy si guud molar pregnancy oo ah complete iyo yani incomplete iyo complete waxaa leenahay waxay leeyihin waxaa loo yaqaano pathophysiology. Pathophysiology inta kuwa inaan fahanna waxa loo yaqaano normal conception ama normal fetus ama normal pregnancy maxaa dhahay. Normal conception-ka maxaa dhahay. Normal conception waxaa dhahay this is ovum. Ovum waxaa ku jiro 23 chromosome, 23 chromosome yaa la falgelaya fertilization with this is sperm. Sperm waxaa wada 23 chromosome wuxuu siinaa zygote. Zygote maxaa ku jira leenahay 40 iyo toban, yani waxaa dhahay waa 46 chromosome. 46 chromosome ku kooban maternal and qayb ka imaanaya maternal chromosome iyo oo mataqaana ka imaanaya labada qaybood kala duwan oo ah aabihii iyo hooyada, ama waxaa loo yaqaano paternal iyo maternal, yani marka waxaa labadaas qayb ayuu ka kala imaanaya. marka waxaa leenahay labadaas qaybood ayuu ka imaanaya 23 chromosome oo hooyada ka imaanayo iyo 23 ka imaanayo aabaha oo loo yaqaano maternal chromosome. Yani waxaa leenahay maternal chromosome ka imaanayo hooyo aabaha iyo maternal chromosome oo ka imaanayo aabaha iyo hooyo ayaa midoobaya kana sameynaya. This is normal process. What happen maxaa dhacay marka molar, yani molar pregnancy ama hydatiform ha noqdo complete ama ha noqdo partial, maxaa dhacay? waxaa dhacay abnormality of chromosomal number, yani maxaa dhacayo abnormality waxaa dhacayo chromosomal number, yani waxaa dhacayo abnormality of chromosomal number during the fertilization. During the fertilization waxaa leenahay waxaa dhacaya leenahay during the fertilization waxaa dhacaya abnormal of chromosomal number. arki doonaa how they will be different, yani jiri doono complete-ka iyo partial waxaa waaye way dugnaan doonaa, laakiin labadooda waxaa ka wada dhexeeyo complete iyo partial waxaa ka wada dhexeeyo inuu jiro abnormal chromosomal number inuu dhacayo during the fertilization. ama normalka waa fahamsan, ama normal fetus-ka ama normal conception waxaa waaye saddex ka imaatay aabaha iyo saddex ka imaada hooyada oo loo yaqaano hooyada qaybta loo yaqaano saddex chromosome oo of the ovum-ka ka imaanaya soo ma. ama ka imaan leenahay waa ovum-ka waxaa loo yaqaano maternal chromosome, aabay ka imaanaya waa spermaha oo loo yaqaano maternal chromosome. marka waxaa waa normal. ama molar waxaa dhacay abnormal dhacayo, waxaa qaldan qaabku dhacayo how waa tanay the partial chromosome, yani partial molar waxaa dhacayo is waxaan leenahay waa ovum, yani waxaan leenahay partialka waxaa dhacaya leenahay iyo kumiga waxay ku dhimaan doonaan waxaa dhici doona one ovum oo ka kooban 23 chromosome. this is ovum ka kooban 23 chromosome oo ah maternal chromosome. waxaa la falgelayo oo fertilization sameynayo two sperm. this is sperm waxaa wada 23 chromosome oo ka imaana maternal aabihi, 23 chromosome oo ka imaana maternal oo aabihi ah. waxay siinayaan marka, yani waxay siinayaan 23 lagu daray 23 oo ka imaaday aabihi soo maternal plus 23 oo ka imaaday hooyadii, isku noqonaya marka la isku daro noqonaya 69 chromosome. waxaa leenahay waa abnormal chromosome number during the fertilization dhacay waa. waxaa leenahay waxaa loo yaqaanaa partial, yani one ovum ayaa waxay hal ukun waxaa la falgelayo 23 chromosome la falgelayo oo ka imaanaya
spermaha iyo sperma kale yani laba sperma halka sperma waxaa laakiin saddex chromosome oo sperma ah iyo saddex kale sperma ah 46 aabaha ka imaanayo iyo hooyada oo ah 23 chromosome iyadoo hooyada markan waa normal waxa qaldan waxa waaye waa waxaa loo yaqaanaa triploid waxaa loo yaqaanaa triploid loo yaqaanaa triploid yani waxaa waaye waxay ka kooban tahay saddex yani laba sperma iyo lagu daro ovum marka ovumka waa normal waxa qaldan aan leenahay waa ninkan mataqaana aabaha ayaa laba xabo soo dheeraa marka waxaa leenahay wuxuu eg yahay badanaa difficulty waa to diagnose markii la gaaro ultrasound maxaa yeelay wuxuu leeyahay fetal part waxaa jooga embryo yani waxaa jooga embryo jooga fetal part cagsi wuxuu ku yahay complete no fetal part no embryo complete laakiin embryo jiro marka waxaa leenahay difficulty baa inta noqon waa adkaanaysaa sidoo kale waxaa leenahay waxaa muhiim ah yani waxaa leenahay waxaa jooga embryo yani waxaa leenahay waxaa jooga fetal part ama embryo sidoo kale waxaa leenahay waa rare yani waxaa leenahay waa rare inuu isku bedesho carcinoma yani waxaa leenahay waa rare inuu isku bedesho carcinoma cagsi waxay ku noqon doontaa complete waa high ama waa common inuu isku bedelo carcinoma ayuu isku bedelay waxaan leenahay waxaa leenahay waa to change waa rare to change na malignant waxaa leenahay waa partial model partial model waa fahamtay 23 chromosome oo normal ah oo hooyadii ah oo kunti ah oo oocyte oo caafimaad qabo waxaa si qalad ku galaya laba sperm meesha hal sperm gal waxa gal laba sperm midkii oo qaatay 33 waxaa ka sameysmay markii 69 waxaa leenahay waa abnormal chromosomal number during fertilization waxaa loo yaqaan triploid waxaa muhiim ah inaad fahanto inuu jiro fetal part fetal part ultrasound waxaa waa adag tahay in badanaa in la diagnose gareeyo waxaa dhacay diagnose hadda oo kale yarma complete arki doonta waadix waaye ma balahan ba fetal part ma kan ba aragta ayadana waxaa waaye kiis yar waaye complete waxaa waa fetal part ma joogo waa easy to diagnose ultrasound is difficult to diagnose ultrasound waaye fetal part ay joogo meesha ama some complete xubin xubin kamid ah fetal part uu yahay rate to change to malignant complete maxaa dhacay complete-ka waxaa dhahnay yani waxaa dhacayo complete-ka oo ugu duwan yahay partial-ka asaga waa only waa paternal yani only يعني wuxuu ka imaana aabihi only the father soma yani waxaan leenahay this is only waxaan leenahay waxaa jira paternal part soma yani waxaan leenahay waa paternal only waxaan leenahay waxaa jira leenahay paternal only yani waxaan leenahay wuxuu ka imaana only aabihi there is no mother chromosome why this waxaan leenahay waa pathophysiology-ga waxaa leenahay this waa empty ovum yani waxaan leenahay waa empty ovum what I mean maxaa kawada empty ovum mean waxa waaye wax chromosome ma laha no chromosome maxaa laga rabaa sida caadiga oo 23 no chromosome in zero chromosome waxaa la falgalaayo hal sperm oo wado 23 chromosome marka gudaha kale waxaa duplication oo sameeyo laba laabma oo noqona 46 chromosome ay noqona waxaa waa laga farqi ka imaata waa aabihi kali oo laba laabma wax duplication sameeyay ayaa noqona this is what option koowaad this is the most common other option waxaa dhacayo this empty ovum waxay galaya two sperm ma galaya waxay siinayaan 46 chromosome yani waa rare laakiin this is tana common ah number koow common ah hal sperm ayaa gudaha galaya wuxuu sameeyaa laba laabma duplication sameeyaa wuxuu siinaa 46 chromosome ama waxaa waaye tan waa empty ayna sidoo kale waa empty waxaa galaya laba sperm ma gashay waxay siinaysaa 46 yani waxaa la markay complete waxaa la markay kooban yahay 46 chromosome there is no maternal chromosome waxaa leenahay only waa paternal only yani waa aabihi kaliya so waxaa leenahay waa common to change yani waxaa leenahay waa common to change carcinoma ama malignant yani waxaa leenahay waxay khatar ugu jirtaa in isku bedesho malignancy yani high risk or high common yani markii laba fadhiyo partial this are common when partial iyo rare waxaa leenahay waa in isku bedesho carcinoma waxay noqon doonaa invasive small ama inuu noqdo waxa loo yaqaan choriocarcinoma sidoo kale there is no fetal part waxaa la qolo waa physical so easy to diagnose ultrasound yani cagsi ay tahay partial waxaa la waa difficult to diagnose maxay waxa jiro fetal part it look like a kind of miscarriage waxaa laga yaabaa kula ka fetal protein waa incomplete in partial ama this complete no fetal part so easy to diagnose no fetal part waa no easy waxaa la waa easy to diagnose waxaa la this waxaa la waa no visible fetal part ma jiro yani waxaa la wuxuu ka imaadan leenahay ovum oo ever ah ayaa waxaa galay sperm inuu sameeyo fertilization sameeyo this pathophysiology of molar pregnancy and complete and incomplete
waxaan soo fahnay waxa loo yaqaano gestational trophoblastic disease. waxaan u qaybinay beri malignant iyo malignant sama. malignant waxaan kasoo xadaa waxa loo yaqaano hydatiform one of vesicular mar oo ah complete and partial oo soo fahnay qaabka u dhacaya sama. this marka waxaa leen waxaa jira ayadana malignant sama. malignant waxaa leen waxa ugu caansan invasive mole ama waxaan kala leen ugu caansan ninka la yiraahdo choriocarcinoma. waxaa leen invasive mole waxaa leenahay mostly wuxuu ka yimaadaa mostly resulted from mostly complete mole. yani badanaa waxaa leen wuxuu ka yimaadaa mostly wuxuu ka yimaadaa complete mole. yani muxuu sameynaa markii wuxuu sameynaa invasive ay wuxuu ku sameynaa myometrium. yani wuxuu ku sameynaa invasive ay wuxuu ku sameynaa myometrium. yani wuxuu sameyn karaa perforation ku sameynaa uu dhex baxa perforation inuu dileeyo perforation of the uterus ama wuxuu sameyn karaa bleeding. so this waxaa leenahay waa locally. also wuxuu kaloo sameyn yani wuxuu aadi karaa local structure-ka ku dhadhow. yani wuxuu aadi karaa surrounding structure-ka kan invasive. so yani structure ku dhagan maxaa waaye uteruska hore waxaa ka xigo anteriorly bladder. so posteriorly waxaa ka xigo the rectum. so yani can be invasive the structure ku dhadhow sama ayuu weerari karaa. this waxaa leenahay waa complete this waxaa leenahay waa invasive mode. laakiin ilaa afkiis invasive mode badanaa ma dhaco waayo soo dhicin maxaa yeelay wuxuu ka imaadaa complete. so marka waxaan rabaa bukaan marka uu yahay complete molar haddaan u sameeyo evacuation aan u sameeyo baa ka soo xaaqay waxaan u diray histopathology wuxuu ilahay waxaa jiro changes of inuu isku bedelo invasive mole ama carcinoma. waxaan u bilaabaa chemotherapy. so marka waxaan leenahay waa decrease da inuu dhaco invasive mole waa la decrease waa yaraaday waa u yaraaday maxaa yeelay waxaa yareenahay complete mole oo ka imaado. complete mole markii la soo xaaqo kadib waxaa loo sameeyaa follow up HCG and ultrasound routine ultrasound la sameynaa routine ultrasound waxaa la sameynaa waxa loo yaqaan HCG. waxaan la soconaa isbedel ka dhacayo. isbedel waxaan u bilaabaa maxaa loo yaqaano chemotherapy asoo wuxuu leeyahay mono iyo mataqaana combination of chemotherapy. marka waxaan waxay yareenaya inuu isku bedelo invasive mole inuu noqdo mataqaana invasive mole waayo u yahay kuwii oo saabtaas u yahay maxaa yeelay waa waxaa la soconaa complete marka soo xaaqado ma la iska diraa waa la soconaa follow up waxaa laga registration gareynaa waxa loo yaqaan wadanka wuxuu leeyahay waxa loo yaqaan gestational trophoblastic centerkaas waa la soconaa. marka waxaa leenahay badanaa waxaa jiro waxa loo yaqaan choriocarcinoma. choriocarcinoma waxaa leenahay waxay ka dhalataa yani waxaa leenahay 50% wuxuu ka imaadaa complete molar. yani 50% wuxuu ka imaadaa complete molar. yani complete molka ayuu ka imaadaa ama molar pregnancy ayuu ka imaadaa 50%. haye this carcinoma 25% waxay ka imaan kartaa non molar abortion. so non molar abortion. so waxaan ahnay any patient of our sameysay evacuation is better to send of histopathology to exclude inuu jiro mataqaana exclusion ku sameyso inuu jiro mataqaana changes of mole changes oo dhacay kale. so marka waxaan leenahay 25% waxay ka imaan kartaa non molar 50% waxay ka imaan kartaa complete molar 25 ka kale waxay ka imaan kartaa bukaan waxaa laga yaabaa 25 ka kale inayba ka imaato term pregnancy hooyo oo term ah pregnancy ay la arki karaa choriocarcinoma. marka waxaan leeyahay waa choriocarcinoma. choriocarcinoma mastar waxaan leenahay presentation-ka oo la imaanayo choriocarcinoma waxaan leenahay waa labo. waxaan leenahay inuu noqdo local sama inuu noqdo local haye iyo inuu noqdo metastasis sama. yani badanaa wuxuu sameeyaa waa cancer saa ogta asino ani cancer wuxuu sameeyaa metastasis. difference u dhexeeya marka soo qaadaysa pathology waxaa jira difference between benign and malignancy. maxaa malignancy inuu sameynayo invasion local oo structures ku dhagan inuu weerarayo invasion ama inuu aadayo waxa loo yaqaan distal organs inuu meel fog aadayo. marka waxaan leenahay presentation da la imaana waxaan leenahay local maxaa waa inuu la imaado vaginal bleed sama. yani waxaa la imaana vaginal bleed waayo maxaa yeelay waxaa leenahay choriocarcinoma trophoblastic disease ku dhacayo mataqaana uteruska sama placentally and trophoblastic disease of choriocarcinoma maxaa waaye trophoblastic disease sama. marka waxaa kaloo ula imaanaa abdominal pain sama inuu kula imaado. isaga wuxuu kusiinaya history of amenorrhea ama history wuxuu kusiinaysa wax loo yaqaano in loo sameeyo evacuation loo sameeyo history kusiinaysa of evacuation loo sameeyey ama in la yidhahdo vaginal bleeding and so historygaas kusiinaysa markan. marka waxaa leenahay waa presentation local ah. haye distance-kan waxay kula imaan kartaa sama inuu saameeyo liver lungs brain ama CNS sama yani brain ama CNS yani liver lung
brain ama CNS and GIT soo inuu saameeyo. Marka waxaa laga yaabaa kula imaado calaamadihii of CNS problem qofka waxaa laga yaabaa kula imaado weakness, inuu kula imaado paralysis, inuu qofka inuu kula imaado vertical vomiting, inuu kula imaado color abuse. Calaamadu waa CNS problems soo ama inuu kula imaado liver soo iyo calaamadii liverka lagu yaqaanay marka uu jirto hormonalka of the liver function ka saaraysa inuu noqdo environment inuu jiro ama high liver enzymes inay kacsiin soo waxaa laga kula imaan karaa metastasis and local ayuu kula imaan karaa ninka loo yaqaano choriocarcinoma. Diagnosiskiisa badanaa waxaa leenahay waa history oo history hadda ku sheego inaad ku weydiiso history of obstetric operation loo sameeyo, evacuation loo sameeyo, dhiig amenorrhea meeqa bilowga ah socod. mostly HCG waxaan arkaynaa inuu high tahay HCG high markaan waxaan arkaysaa HCG-giisa oo high yahay HCG waxaan leenahay waa high so HCG high ah iyo history of oxina vaginal bleeding, history of evacuation loo sameeyo, history of amenorrhea and that sama marka waxaan leeyahay waxaan waa choriocarcinoma and ischemia. marka choriocarcinoma ma u sameeyo ma ka qaadi karaa biopsy? Can I take biopsy? No. عيل biopsy dadka qaad wuxuu ziyaadinaa increase the risk of heavy bleeding iyo dhiig badan kala ayo soo marka waxaa aadana clinical presentation of hydathoformal or molar pregnancy. Molar pregnancy waxaa waan naxna u kala naxna complete iyo partial yani complete partial ayana clinical presentation of molar pregnancy ayaan ka hadlay. Molar pregnancy wuxuu ku imaanaa sama yani wuxuu la imaanaa waxa loo yaqaano vaginal bleeding sama yani wuxuu la imaanaa vaginal bleeding. First waxaan ku history of short period of amenorrhea. Waxaan laga play doctor amenorrhea waxa ahaa 2 months ama 1 month ama 4 week ama 3 weeks. Sama waxaan history of short period of amenorrhea. Hay 3 months 2 months hay amenorrhea. And then vaginal bleeding hay waxaan ku abdominal pain sama and abdominal pain. Waxaan ku abdominal pain, vaginal bleeding, history of amenorrhea sama history of nausea and vomiting sama يعني حاجه اللي ممكن early pregnancy waxay loo arkaa nausea and vomiting sama nausea and vomiting ay waxa ka sama sida kale this is waa history ama symptoms. Examination waxaa arkaysaa examination-ka yani waxaan ka examination waxaan u kala qeybinayna sama sida caadiga ahayd waa generalkii iyo abdominalkii iyo local sama meeshaan generalka wax macno badan ma lahan maxay rabtaan muu baahna sama loo sameeyo laakiin to exclude inuu mataqaana other organ kale oo metastasis iyo carcinoma waxaa la general examination so CNS liver iyo general examination and then local examination waxaa sameynaysaa uterus waxaa arkaya more and more yani larger than the date of the embryo. Waxaa laga yaabaa waxa 2 months ama 3 months waxaa laga yaabaa fundal level inuu maraabo sooma inuu yahay 26 ama 20 uterus inuu yahay larger than the expected date of larger than the date of the amenorrhea. Marka ay uterus uu ka weyn yahay yani mataqaana ay sheeganayso waxaa laga yaabaa laba sheegta oo sidoo kale waxay noqonaa soft iyo noqonaa local maxaa arkaa local waxaa laga badanaa waa soo vaginal examination. For vaginal examination by inspection you can see molar physical sama yani maybe ina arko molar physical ski sama in the vagina molar physical ski inna waxaa laga yaabaa ka arko vagina lagu arko molar physical sama yani waxaa arki karaa waxaa inuu jiro molar physical ki inuu ka soo baxo shedding in the vagina. waxaan leenahay marka waxaa la history and examination ama xabso ultrasound. Sometimes waxaa laga yaabaa bukaanka history and examination kula imaado maybe accidentally in lagu arko ultrasound-ki maybe sometimes يعني waxaa laga yaabaa aysan ka caawin no history of no examination bukaanka waxaa laga isku mooday pregnant tahay she is think she is pregnant and she came antenatal care and you do ultrasound and you found that there is complete or incomplete. As you know, incomplete difficult to diagnose ultrasound sometimes because there is the fetal part عادي جوه it look like مثلا in part fetal part هي أو مش كأنه صار like that. فعلى this فعلنا هو clinical أو كوري ما هو history and examination. Investigation كان ضمنها من حيث investigation كان sorry symptoms كان اسمه حلو كان هو early symptoms. واحد يقول الله late symptoms. late symptoms كان مثلا 3 months وقت صح. على من أقول ما تحوي هاي برامج كلا كدارم صح. history of oxygenation of hyperemesis gravidarum that is excessive vomiting hyperemesis gravidarum طبعا excessive vomiting and nausea يعني محتاج بدن يكون why محتاج بدن because as you know molar pregnancy there is high HCG so increase the HCG increase the حالنا زيادة أي طبعا nausea and vomiting طبعا
ICU waxaan soo sheegnay multiple pregnancy-ga and hydroformalka warnings increase the risk of hyperemesis gravidaal. sidoo kale waxaa laga kula imaata hyperthyroidism inay kula imaato because waxaan leenahay HCG-da high ah yani waxaan leenahay ziyaadinaysa sidoo kale thyroxine levelkiisa inay ziyaadiso. sidoo kale waxaa laga kula imaato preeclampsia sometimes waxaa laga kula imaato early presentation waxaa laga yaabaa bukaanka 20 week ay taxaba ama less than 20 week inuu kula imaato preeclampsia waxaa laga early presentation ama early onset of preeclampsia inuu bukaanka waxaa laga kula imaato early onset of preeclampsia hyperemesis gravidaal ama hyperemesis maybe late symptoms these are early and this is late symptoms kaasina kula imaato. marka waxaan leenahay waa history examination and positive results. hadda waxaan fahmay waxa loo yaqaan investigations urine-ka maxaa high inuu high of HCG blood maxaa dhanaa blood waxa loo yaqaan monitoring looga sameeyo trophoblastic disease bukaanka marka mostly waxa waaye before evacuation marka la gaaro waxaan qaadaa quantity beat HCG quantity xisaabina and then after evacuation waa la soconaa sama follow up waa xisaabina this is waxa la HCG-ga quantity-ga xisaabina ziyaada ama soo dhacaysa increase or decrease after evacuation for monitoring waxaa leenahay beta HCG waxaa leenahay monitoring of trophoblastic disease saa ula socono trophoblastic disease-ka markaan soo xaaqno arki doonaa beta HCG kala socon doontaa dhiiggaasa kala soconaysaa magacada marka waa la socotaa. sidoo kale waxaa leenahay bukaanka waxaa loo sameynaa loo yaqaano ultrasound maxaa arkaysa waxaa loo yaqaan snow storm badan ayaa loo arkaa waxaa loo arkaa badanaa complete waxaa very clear waaye but like difficult waxaa noqon doontaa partial waa aragta xoogaa markaan ayn fetal part laakiin tan no fetal part complete so waxaa loo yaqaano snow storm waxaa leenahay arki doona snow storm sama yani waxaa leenahay snow storm say taala sababta waa kana kana complete yani there is no fetal part waxaa waaye waa physical waxaa waa physical so waxaa leenahay waa arka multiple cysts yani waa multiple cyst area ama physicals ama waa cystic badan oo ama waxaa leenahay this waa uterus sama waxaa leenahay this mostly complete waxaa leenahay snow storm appearance waxaa leenahay mostly waxaa leenahay this waa complete miscarriage but laakiin waxaan aanay tan loo yaqaano partial so much more difficult because waxaa arkaynaa markay partial tahay inuu jiro qaybna waxaa leenahay tahay fetal part-iga caadiga ay ahayd oo qaybta kale waxaa ay noqotay physical side ama this waxaa leenahay mostly clear-ka waa complete waxaa leenahay waa extract history and examination aan sameynay urine and blood and ultrasound waxaa leenahay sidoo kale waxaa loo yaqaan histological examination goorma after evacuation waxaa leenahay marka bukaanka u sameeyo evacuation aan u sameeyo guuritaanka aan u sameeyo is better inaan the product-iga of aan soo qaaday the product of consumption waxa uu diraa histopathologist aan diraa sama waxaa loo yaqaanaa post treatment waa post treatment yani treatment-iga kadib waa inaan diraa yani waxaa la soconaa marka model pregnancy ayaan filayaa inuu yahay non invasive inuu yahay inuu invasive yahay inuu carcinoma to confirm the diagnosis to confirm why also to confirm the diagnosis why to confirm the diagnosis inuu yahay model pregnancy I want to confirm it's model pregnancy so and also waxaa leenahay why hadar uu daba to plan follow up yani waxaa la soconaa follow up kiisa example kale waxaa lahay waa partial ama waa complete so waxaa la soconaa plan for follow up oo la soconaya ay xadidaysa waxa la yiraahdo kala carcinoma la invasive mole ama waxaa la kori carcinoma so follow up kala duwanaan marka isbedela follow up waa isbedela marka aan la soconaa waa isbedela according to the result ay soo bax marka haddii noqoto complete ama waxaa la soconaa HCG يعني waxaa aragoo kale invasive mole ama kori carcinoma waa able to start immediately chemotherapy and balaa sama so very important marka inuu histopathology so is better any evacuation of fetal part that uu jiro is better to histopathology ahsan marka histopathology to compare and to screen sidoo kale in the case-ka ka shakisanahay inuu jiro suspected of metastasis maxaa la according to the presentation example يعني waxay ku hadla qaab example maxaa waaye example CNS problem oo keenay waxa laga yaabaa uu leeyahay CNS manifestation oo ay tusinaya metastasis sama yani fajana bayna jiro HCG waa high sama waxaan ku sii daraa kale CNS problem oo ilaa imaada ama effect so marka waxa loo yaqaan MRI brain sama MRI brain laakiin bukaan CNS kiisu waxba involvement uusan jirin waxba qasaaran geeyay lacag adag qasaar
laakiin haddaan arko kule qofkan CNS-kiisa oo involvement yahay waa u diraa MRI of brain. Kan waxaa laga yaabaa imaado kale calaamadihii soo waxa ka shakiyay inuu jiro mataqaana pulmonary ama chest soo waxa inuu jiro mataqaana involvement inuu dhacay. Waxaa u diraa chest X-ray soo waxaa leena chest X-ray ama CT scan of the chest. Waxaa waxa ka shakiyay soo kale inuu u diro CT abdomen soo CT abdomen and ultrasound soo inaan fiirino inuu jiro mataqaana ascites-kii and liver-kii ayaa fiirna. Isma waxaa leena waa history and examination and investigation of molar pregnancy. How to treat the molar pregnancy? Molar pregnancy maxaa waaye yani waa complete and partial. The best option for treatment is suction and curettage. Yani waa soo xaaqeena. Suction and curettage. Yani this is the good ama the effective management. Yani inaan u sameeyo curettage. Yani evacuation inaan u sameeyo and suction and curettage. Yani inaan kasoo xaaqa ayaan waxaa leenahay this is the good option waaye. So intaan la gaarin soo xaqitaanka the first any patient any mother of gestational trophoblastic disease you must to registration. Yani waxaa sameynaa registration waxaa loo sameynaa meesha loo yaqaano gestational trophoblastic center. Yani center la dhahayo gestational trophoblastic disease center ayaan registration ugu sameynaa. Why? Follow up meesha lagala sameynaa meesha lagala soconaa soo marka waxaa leena this marka waxaa leena section ay kulitaan the most effective marka waxaa leena effective ugu muhiimsan waxaa leena waa surgical effect. And then after you do surgical evacuation waxaa sameynaysaa I will send histopathology soo waxaan u diraa pathology aan u diraa to confirm and to exclude soo in the diagnosis and to exclude inuu soo jiraan any carcinoma histopathology section of kulitaan plus histopathology aan u diraa pathologist loo soo ogaado. And then waxaan leenahay waxaa loo sameeyaa wax loo yaqaan anti-D. And after evacuation we give anti-D haddii hooyada tahay soo anti-D if mother rhesus negative haddii hooyada ay tahay rhesus negative waxaa leenahay waxaan siinaynaa anti-D soo anti-D aan siinaynaa surgical evacuation oo sameynaa waxaan u diraynaa histology soo histopathology kadibna waxaan sameynaa follow up oo la sameynaa HCG da la soconaynaa HCG haddii dhici weyso waxaan leenahay waxaa loo bilaabaa chemotherapy haddii dhacdo khalas okay way. Hysterectomy. This is the option. The second option. The first option is section of curettage and sending for histopathology. Hysterectomy. If complete hair family, complete hair family is better. And this is the best option. If complete hair family, yani para 7, para 8, para 5, and so on. And if she is complete hair family or is more than 40 years old, she is more than 50 years old, is better. More than more than 40 years is better to do hysterectomy. Why? لأن waxaan ka cabsanaa ay fiir choriocarcinoma ay invasive mode. Marka waxaa leenahay if more than 40 years old and or complete hair family is better to do hysterectomy. Yani si uusan u dhicin choriocarcinoma and invasive mode. Follow-up ka sameynaa maxay? Follow-up waxaa leenahay waxa uu sameynaa wax loo yaqaan HCG. As you know, within 8 weeks, HCG is normal. Within 8 weeks, normal. So, waxaa leenahay first visit after 2 weeks after evacuation. So, waxaa fiirin oo soo dhacayn kara. And then waxaa leenahay waxaan soconaynaa 6 months ugu horeeya waxaa leenahay waa imaana bil kasta waxaa sameynaa HCG is haddii dhacdo khalaas. If not fall haddii hoos u dhici weyso waxaa leenahay decrease ku dhici waxaa leenahay we will start chemotherapy. If decrease okay خلاص not decrease or يعني احنا لو بدنا نقول يا increase or decrease or plateau سمع انه مثلا اي سنه زياده اي سنه كده سمع يعني ما تنساش تحي يعني زياده يعني نص ضعضه عامل سي صوت سواء plateau او احنا ده فلو كده خلاص علينا فلو ما حوصل هيك خلاص علينا هيك يعني فلو ما علينا مصل اسبيتر يعني علينا 2 year سمع يعني فلو علينا حوصل هيك 2 year خلاص علينا marka waxaa isma xalina waa HCG aan la soconayna every mataqaana saddex bilood imaana after 6 months if degrees waxaa la xalina xalina waa every 3 months ka hadda imaanaysa laakiin خلاص degrees ma oo laakiin high si ah waxaa bilaabana chemotherapy. Contraception isticmaalaysa why ay isticmaalaysa contraception why because yani waxaa la hadda waxa u dhacay confuse u dhacay this is increase the HCG the source gelinta waa is new pregnant or relapse relapse of the disease and cudurkii ayaa soo aan degin oo soo laabtay oo soo kacay
mase waxa waaye new pregnancy, I don't know. So I will be confused yani. So waxaan leenahay waxaan leenahay bukaanka there must be contraception yani contraception isticmaal, avoid the pregnancy. Why to avoid pregnancy? Because marka waxaan kala saari weynaa inuu cunay HCG dan, the source of HCG I don't know. Is there is new pregnancy or waxaa leenahay the relapse of the disease, ma garan karo yani ma relapse waxaa leenahay waxay ka timid disease ka marka qaabka isticmaalka is better in isticmaasho wax loo yaqaano mechanical ama wax loo yaqaano barrier is better in isticmaasho ama option jiro arki doona contraceptionist waxa fiican marka isticmaasho mid kale loo yaqaano barrier ka ama mechanical ka sida condom-ki iyo wax loo yaqaano mechanical ama barrier ka in isticmaasho ayaa fiican. Indication of chemotherapy yani waxyaabaha keenayo in uu isticmaalo chemotherapy maxay tahay yani what jira yani ay indication no ama waxyaaba dhahayaa isticmaalno chemotherapy sama chemotherapy-ga dirigna waxaa loo qeybiyaa marka laga hadlayo score-ka waxay dhahaan low risk iyo high risk sama yani marka badanaa low risk waxaa ku filan only single chemotherapy only مثلا inasugal methotrexate, ama high risk waxay baahanaysaa combination yani isku daro daawooyinka combination high risk and low risk scoring sama marka waxaan leenahay indications waxaa kamid ah aan leenahay number 1 waxaa kamid ah HCG waxaan leenahay inay kacsanaato HCG yani waxaan leenahay number 4 waxaan leenahay number 1 waxaan leenahay HCG inay high tahay sama yani waxaan leenahay HCG inay tahay high two consecutive sample yani waxaan qaaday 2 consecutive sample ayaan aragnay waa HCG is go up sama yani kor u socotaa 2 consecutive sample laba sample oo isku xigto 2 consecutive sample yani laba sample oo isku xigtaan ka qaadnay sample oo isku xigto waxaan laba sample aan ka qaadnay waxaan leenahay waxay keenaysaa leenahay in HCG aan bilaabo maxaa yeelay waa kacsan ama waxaan leenahay yani HCG-da wuxuu ka badan yahay more than or equal 20 to 20 kun ka badan yahay يعني HCG soo ka badan yahay 20 kun more than يعني 4 week after 4 week of the evacuation la arko HCG oo more than 20 waxaana waa isma waa indication. sidoo kale waxaan leenahay HCG haddii kacdo aan leenahay ay kacdo ay rising sameeydo during the 6 months yani 6 months haddii kacdo waxaan leenahay ay rising sameeydo waxaan leenahay waa indication. waxaa kaloo indication kamid ah yani waxaa leenahay indication waxaa kamid ah hadduu ahaado HCG haddii ahaato plateau sama يعني HCG haddii noqoto ee kacsan sama plateau yani waxaan leenahay HCG haddii ahaato ee yani sida caadi waxaa waaye yaa inay kacdo yaa inay soo degto sama option ingiriis oo degto laakiin plateau waxaa waaye mana degin mana kici waa soconaysaa waxaan leenahay ayadana waxaan leenahay waa indication yani plateau haddii ahaato ay kacsanaato ay ahaato sida tagnaato aysan hoos u dhicin in hoos dhacdaa la rabay waxaa leenahay oo yani more than 4 week yani more than 4 week after evacuation waxaa leenahay waa indication. sidoo kale waxaa leenahay haddii ay jirto metastasis yani ani metastasis waxaa leenahay idan oo bilaabnata waa high risk noqonaysa ama high risk group kale hadduu jiro ani metastasis metastasis of pulmonary of vagina of the valve waxaa leenahay oo bilaaban sama GIT CNS. sidoo kale waxaa leenahay hadduu jiro ani histological evidence يعني histology underlying histology pathologist underlying histological evidence of choriocarcinoma يعني sample ki aan dirnay pathology wuxuu noqonahay wallahi waxa jiro there is histological evidence of choriocarcinoma so I will start so this indication of indication is ugu muhiimsan waxaa leenahay waa indication of chemotherapy waxaan joogaan dhamaadkeen waxaan leenahay waa choreo waxaan soo molar pregnancy waxaan soo gaarnay molar pregnancy muxuu yahay what is the typeska yani source station plastic maxaa laga wadaa meeqan waxaa loo qeybiyaa pathophysiology-geedii presentations-geedii treatment-gii ayaan soo gaarnay intaas kusoo gabagabeynaa cashirkan insha allah.